بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bishii January 2026 waxa halkan ku midoobay ururada magacyadoodu kala yihiin ONLF Jabhadda Xoreynta Ogaadeenaya Congress Somali Court ururka danta shacabka Soomaaliyeed Somali Regional Democratic ama ururka dimuqraadiyadda regionka Soomaalida alliance-giisa saddexda urur ayaa ku heshiiyay waxa ina la baxeen magaca loo yaqaano Somali People's Alliance Self Determination oo macnaheedu af Soomaali ku noqonayo ururka isu tagga dadka Soomaaliyeed ee ay ka tashigooda ururadana waxay ku midoobeen inay mid noqdaan siyaasadda ka midoobaan dimuqraadiyadda ka midoobaan ayna samaystaan hal platform ama wax loo yaqaan hal gole oo ay siyaasadda deegaanka ka hagaan ururadani waxay u halgami doonaan dhammaan xuquuqda u deegaanka Soomaalida ummadda deegaanka Soomaalidu ay leedahay ilaa ay ka tashid alliance-gan ama isbahaysigani kama tanaasulayo taariikhdii ummadda Soomaaliyeed lahayd waa una xasuusan yahay waxa uu noqonayaa mid ku halgama isagoo ka duulaya taariikhdii ay soo mareen iyo halgamadii ay soo mareen ummadda Soomaaliyeed kana sii ambaqaada halkaas ururadani waxay isu bahaysteen inay ka takhalusaan ama ay meesha ka saaraan nidaamka Abiy Ahmed ee xukunka yimid 2018 kaasoo u dhaqmay ummadda Soomaaliyeed ula dhaqmay dhamaan sida ay ula dhaqmi jireen maamuladii isaga ka horeeyay ee ku tacadi jiray xuquuqdooda midnimadooda xuquuqdooda gaar ahaaneed iyo tiyada dastuuriga ah ururadani waxay furi doonaan hiigsi cusub iyo halgan cusub oo loogu halgamo ummadda Soomaaliyeed mustaqbalkeeda iyo in loo halgamo sidii loo gaarsiin lahaa xuquuq dhameystiran ilaa ay ka tashi ay gooni isu taagi karaan ururadani waxay u midoobeen in la mideeyo xoogaga ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxa uu u furan yahay ururkan cusub alliance-gan cusub ama waxa loo yaqaano isbahaysigan cusub dhammaan xisbiyada ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kasto ay joogaan ee deegaanka Soomaalida ka hawlgala iyadoo la marinayo processkii ay saddexdan ururi mareen ugu dambeyntii waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay u istaagaan halganka xuquuqdooda ay ka tashi ama waxa loo yaqaan self determination-ka ilaa heer ay ka tashi oo ay mustaqbalkooda kaga takashan karaan waxa isbahaysigan midaysan yahay uu hirgelinayaa midnimada oo Soomaaliyeed isu tago